waxaa muuqata inuu jiro khilaaf ka dhexdhexeeya xildhibaanada mucaaradka ah oo inta badan dowladda dhaliilo u jeediya iyo weliba sidoo kale sanad walba markii dowlad kastoo ay jirta qaybaha dambe ay soo gaarto in khilaafyada noocaan ay soo bataan marka hore arrintan iminka baarlamaankan xildhibaanada ku jira iyo baarlamaanadii hore markii aan isbarbar dhigno maxay tahay baarlamaankan sababta xildhibaanadu u mucaarad badan yihiin waa mahadsantahay cabdicasiis waa ku salaamayaa sidoo kale TV-ga Somali Cable waa wada salaamayaa dhammaan howlwadeenadiisa iyo madaxdiisa waxaan salaamayaa sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee hawada nagala socda ama daawanaya ama dhageysanaya meel kasto ay joogaan salaanta islaamkaana leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu calaykum salaam bacda salaam cabdicasiis xildhibaano oo horta iskhilaafsan ma jiraan ra'yiga la isku khilaafo baarlamaan waa quruxdiisa laakiin ra'yi dhiibashada ama xildhibaanku dowladdu ha caarado ama ha taageero wuxuu leeyahay qaab oo sharciga waafaqsan oo siinaya awood inuu dhaliishiisa ka yiraahdo golaha horteeda isla markaana wuxuu u arko in xukuumadda ama hay-adaha dastuuriga ah wuxuu doono oo markaasi dhaliishiisa iyo aragtidiisa ee saameyn ku leh haddii ay kalifto wasaarad ka mid ah maalan in uu codsado isaga iyo tiro xildhibaano ah in wasiirka la horkeeno oo su-aalo la weydiiyo ama dhaliishaas allahuma hadday gaarsiisan tahay heer ra-iisul wasaare baarlamaanka wuxuu xaq u siinayaa sharciga u yaalla inuu xildhibaankaasi waxa uu dhaliilayo iyo waxa uu soo jeedinayo in la qadariyo ayna tahay dhaliishaasi weliba mid wax dhisaysa oo aan ahayn mid wax duminaysa laakiin annaga xildhibaanadu iyadoo lagu kala aragti duwan yahay haddana xildhibaanku shacbiga Soomaaliyeed buu u dhaxeeyaa haddii weliba uu yahay xildhibaan qaran marna wuxuu yahay xildhibaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ee asaga loo baahan yahay inuu codkooda uu ku hadlo marna waxa uu furan deegaan doorashadii uu ka yimid oo inta badan ay maamul goboleedyo hadda ay noqdeen marka kalena degmada si toos ah uu uga soo jeedo ama gobolka waxaa halkaas ka dibna meel u taalla nidaam beeleedkii lagu heshiiyey ee mujtamaca Soomaaliyeed ee shanta beelood ah mid uu ka tirsan yahay inuu u hadlo wixii si gaar ah ayaga u taabanayo u khusaynayo waata xildhibaan arrintan diwaan u soo laaban doonaa oo si fiican noogu sharaxaysaa toddobaadkan wuxuu ahaa toddobaad shaqo waxaa warar soo gaara waxay sheegayaan in guddigii joogtada ahaa ee golaha shacabka shaqo ay soo sheegeen oo ay soo diyaariyeen ama ajanda ay diyaariyeen uusan jirin oo saas daraaddeed kulamadii baarlamaanka ay u baaqdeen tan kale waxaa leeyahay xildhibaanadu waxay u qaybsameen xildhibaano mucaaradkii xisbiyada mucaaradka ay dhex boodo oo meeshaas ku mashquulsan iyo xildhibaano xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo safarro banaanka wadantooda u kala qaybsan soo ma keeni karto shaqadii golaha shacabka inay habsan noqoto waa run xaqiiqada lagama leexdo wixii jirane in la qariyo waa xaaraan waa runtaa inay xildhibaanadu qaar ay noqdeen xildhibaano ku dhex milmay axsaabta siyaasadeed oo inta waqtigooda ay siiyaan doodaha ay ka geystaan iyo aragtida ay ka dhiibtaan meelaha xisbiyada ay ku shiraan midii qarameed ee iyaga loo igmaday ama ay ku matalayeen deegaan doorasho iyo mujtamaca Soomaaliyeed ee iyaga soo wakiishay aanan intaba eegin xisbigaas ay ku fikirka yihiin waxa ay inta badan ay caaradayaan ay tahay dawlad iyagu ay ka mid yihiin oo marka iyaga meeshii laga rabay inay ayaga ay noqdaan wixii jira ee khalad ay sheegayaan dadkii sixi lahaa oo awood loo siiyay inay baarlamaanka dhexdiisa ay awoodooda ay u isticmaalaan
inay garan waayeen oo ay noqotay meel aan xoogoodii oo aan waxba ka goynaynin inay ay ku khasaariyaan ay miidiyaha 80% iyo meelaha axsaabta siyaasadeed xarumahooda ah iyo meelaha isugu imaanayaan inay noqdaan meel ay ayaga badi ee doodooda iyaga ay ka sii daayaan taasi waa nasiib darada haysatay ka mid tahay baarlamanku iyo xildhibaanada ee iyaga loo baahnaa inay xoojiyaan baarlamanka ee asaga waqtigiisii intuu siinayay ay noqoto mid qarankii Soomaaliyeed hadiiba wax ay jiraan in laga bedelo jaaniska uu asaga uu leeyahay inuusan beerdarayn waqtigiisana uusan ku luminin meel oo asaga qofka badi ee aanan heli karin jaaniska uu haysto oo asaga fursad u noqotay inuu ka hadlo maxaa ku soo haray waarun inay maqan yihiin baarlamaanka 275 buu ka kooban yahay kooramkiisa ma dhaafo 140 boqol haday u badato 150 maalinta la yiraahdo waxba ujeedo kale la leeyahay ayaa wuxuu gaarayaa 200 iyo inta koow waligiisa baarlamaanka ma soo fariisanin 250 baarlamaanka waxaan ku jira wadaasha xaadiro inta aan ka qayb galay kulamada baarlamaanka xitaa ma arkin baarlamaanka 290 gaar in la isweydiiyo yaa mas'uuliyadda iska leh baarlamaanka sharci baa yaal xildhibaanka hadduu soo fariisan waayo ma artay kal fadhiyo oo cayiman inuu weynayo xilkiisa ee ay keensan karaan dadkii shalay isaga soo wakiishay nin ay ku bedeshaan laakiin janiska yaa siinayo isku mid aqalka sare waxa laga helayaa waa leeyahay dad aan waligood soo fariisan kana tirsan golaha shacabkana sidaas oo kale oo waliba gudiyada muhiimka ah qaarkood gudoomiyaal ay ka yihiin gudigii joogtada ee inuu soo saari waayo ajenda uu keeni waayo laba arimood baa loo aaneynaya asagoona ma gudigii joogtada badi sida ay axsaabta siyaasadeed lagu kala dhexmilan yahay iyo mucaaradada banaanka inay howlahoodii badi ay meelka ay maartay ay siiyaan ee ay tii baarlamaanka looga sugayay inay marka waxa way mid kale waxa kaaga sii daran gudiga waxa way joogtada 85% waa dad mucaarada ah in gartay marka mucaaradada micnaheedu maaha baarlamaanka inaad asaga daftarkiisa aad mucaarad ku noqotid oo shaqadaadiina mucaarad ku noqotid ee tii adiga lagu igmaday aad u dhaartay mucaarad aad ku noqotid dawladdu ma aha xasan sheekh iyo maartay madaxweynihii hore ma sheegaya ee hadda maartay madaxweyne farmaajo iyo maartay iyo xasan cali khayr oo inta badan targetka ee doodaha ee ay tahay mid ku wajahan villa Somalo ya laakiin waxa way dawladdu waa ku wada jirnaa baarlamaanka ceebta uu leeyahay waa wada leenahay laakiin waxay dawladdu ceebta ay leedahay waa wada leenahay shakhsi ma noqonayo dawlad kaligiisa dalxa laakiin waxay leeyihiin dawladii aan ugu mashquulsan safaradii noo ogoleyn ciidamadii naga wadanaysa nacaburinaysa na weeraraysa xildhibaanada qarsoon dawladdu waa tee horta aan isweydiino dawladdu waa tee ninka xildhibaanka asaga dawladda ma ku jira miyaa xildhibaanku dawladda hay-adii ugu xooga badnayd isagaa ku jiro maroodi haddii asiga uu garan waayo xoogiisa duurka uu la galay hadda isagaa isgabay Soomaa annaga waxa ka adag xasan cali khayr xukuumaddiisa 139 xibnood oo gacanta u taagta oo ay tiraahdo xukuumaddan kalsoonida waa kala laamanay madaxweyne farmaajo waxa ka adag 2/3 ma gartay oo inta laga keenay motion oo impeachment lagu sameeyo dadkii ayaga haddayba ayaga ay dhaliil ay u hayaan ee in qaranka laga qabto oo ayaga waxa ay soo jeedinayaan ay tahay baarlamaanka ka campaign gareeyaan intay ayaga ahzaab siyaasadeed ka campaign gareyn lahaayeen iyo shacbi oo iska caadi ah oo sacab ay ka raadsan lahaayeen iyo waxaan ayaga ku hadda ay ka qaban karaan codkooda aanan jirin waxa ka khayr badnaan lahayd ayagoo baarlamaanka ka dhaadhiciya fikradooda ka gada haddii xukuumadda markaasi iyada ay mudan tahay in dadka laga hor dhaqaajiyana laga dhaqaajiyo haddii sidaas oo kale madaxweynuhu uu isaga uunan u cuntamin ummadda Soomaaliyeed oo codkooda wakiil ay kaga yihiin ay la yimaadaan nidaam oo ayaga markaa ka qurxoon mid hadda ayaga badi laakiin in la baxo hadba ninkii dawladda ka soo horjeedo loo camiro oo maamul goboleedyada dawladda ka soo horjeeda la camiro oo la camiro ma aragtay naadiyayaasha ee ma aragtay dawladda ka soo horjeedo xildhibaankii uu camiro waa laga fiican xildhibaan ma ku muuqataa in xukuumaddu idinku dhex nooshahay qaabka xildhibaanadu wasiiradu ugu tirsan yihiin oo kale in ay marka horeba ka baaran digtay oo ra'iisul wasaaruhu tiradii ugu badneed ee xildhibaanaha wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlo oo ka dhigtay si uu isku difaaco adeer waa la isku dhex nool yahay 275 xildhibaano anaga wasiirna waa soo marnay gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaan waan soo noqday
baarlamaanka guddoomiyeyaasha ee guddiyadan ku xigeen waan soo noqday nidaamka lagu shaqaynayo uma eka nidaam dawladeed iyo nidaam hay-ado dawladeed ee loo baahan yahay dariiqii ayaga looga fadhiyay inay ku shaqeeyaan baarlamaanka guddiyo ayaa u ah adimada uu ku soconayo ama mashiinka saaran baarlamaankii guddiyadiisa waxay noqdeen guddiyo aanan isku hagaagsanayn oo aan isku toosnayn oo markii horeba lagu dhisay jantaar rogan oo cadaalad dara lagu dhisay oo aan yacni nidaam beeleed ba meel waliba annaga hadday tahay golaha wasiirada hadday tahay golaha shacabka iyo hay-adaha dawladda ay ku dhisan yihiin ma rumaysanaysaa dhowr jeerna waan sheegay guddiyada baarlamaanka waa 15 beel waliba waxay xaq u leedahay 5 beelood guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye beelaha haysto 4 beelana guddoomiye hal ma haystaan aniga kula hadlayo 7 kursi baan ku leenahay guddoomiye guddi waana loo quuri waay guddoomiye ku-xigeen guddi waana laga baloogay waxaa guddoomiye guddiga joogtada ku jira ah dad 2 kursi haysta dad 1 kursi haysta dad 3 kursi haysta ayu cadalatin hada wa ayu nidaamin barlamaniyin hada raali bay ka yihiin dadka wax caaradayo cadaalad darada hoostooda taalla ee ayaga ay baarlamaanka ay ka tirsan yihiin ma arkayaan indhahooda oo waxay raali ka yihiin dulmiga lagu samaynayo beelaha kale ayaga la midka ah oo dadkooda ee ayaga sidaa loo dulminayo raali bay ka yihiin dacwada kuwan ay qabaan oo wax sheeganaya oo leh aad leedahay ayagoo cadaalad darro jirto wax raadinayaan xildhibaanadan aad sheegayso in ay ku dhex dhibaataysan yihiin guddiyada oo ay kuraas la yihiin may ka hadlaan hadalka waxaa ka horeysay annaga guddoomiye jawaari annaga campaignkan u galnay waxaan kaga horeynay dadka gadaal kaga soo darsamay mooshinkii laga geeyey wax kale kuma aanan haysanin annaga kursigiisa uma aanan hanqaltaagaynin baarlamaanka sax baarlamaanka reform buu u baahan yahay baarlamaanka dadkii ee ayaga khibrad iyo waayo aragnimo iyo aqoon ama xishmo ee ayaga baarlamaanku lahaa oo dhan block baa la saaray waxaa laga dhigay waa la dagaasheen waa iska celiseen annaga iska celin iyo dagaal meesha ma aanan oolin annaga in nidaamka baarlamaanka wax laga bedelo ayaa ujeedkeena in wax laga socdo ma nin inuu bedelo waxa hadda Soomaaliya ee ku baaba'adayna waxa waaye qofba qof inuu bedelo raba laakiin nin nidaamka jira inuu bedelo haddii nidaam cadaalad darro ku sifoobay inuu ku bedelo nidaam cadaaladeed kuma fakarayo maxamed mursala keenteen muxuu bedelay maxamed waa shakhsi waana shir guddoomiye waxba ma bedeli karigiisa guddoon 2 xubnood baalahay ka fadhiyaan asagoo arbitre 2 calan sida ee dhinacyadiisa ka fadhiyo hadday ayaga aanan la shaqaynin asaga go'doon buu noqonayaa haddaanan baarlamaanka guddiyadiisii sidii la rabay hawshooda aan u qabanin baarlamaanka socon maayo haddii baarlamaanka aananba koranba imaanaynin ma maxamed mursala yiraha imaanina nimanka xildhibaanka loo soo dhaariyay ilaahay ku dhaartay isimkiisa inuu wadanka u shaqeynayo oo waajibkii la saaray si adag u gudanayo hadduu gurigiisa maalinta baarlamaanka la fadhiyo uu jiifo ama Europe iyo America isaga ee maartay tamashleynayo ama 24 saac xaq darro ku qaadanayo maartay xuquuq aanan isaga mudnayn kii mudnaana ee meesha uu ku cadilan yahay oo xuquuqdiisii horta xildhibaanku waa inuu gartaa xaq asaga lagu leeyahay xaq asaga uu leeyahay waa fahmay barasol waxa uu fahmay cadaalad darradii xilliga jawaari jirtay ee jawaari loo buriyay ilaa wali wajistaa way taagantaa iyadoo geesa dhaadheer ma gartaya maxaa kale oo ku sheegayaa walaalow anaga xildhibaanka xuquuq ka maqan oo wali aanan admoodidba in ay ka indhasaaban yihiin horta xildhibaanku yuu matala doorasho deegaankiisa iyo dadkii isaga markaasi magacooda isaga la yiri dadkaasaad masishaa oo reerkaasaad adig u fadhidaa reerkiisa lagama tashto dadkiisii iyo deegaankiisii wixii looga baahan yahay haddii qaarkood ayaga ee lagu tixgeliyo oo ayaga kuwaanan lagu tixgelinin inay ayaga deegaankaasi ka soo jeedaan baydhaba maanta aniga deegaan doorashadayda ay tahay waxaa laga yaabaa inay aadaan ergo oo baarlamaanka ka socdo baydhabo aniga layga tago oo nin aanan deegaan doorashadiisa baydhabo aanan ahayn dayaaradda horta ka saaran yahay ma gartaya okay waxaan ka soo jeedaa gobolka Shabeellaha Hoose maamul baa loo dhisayaa dad baa la magacaabayaa afgooyan ka soo jeeda ka sii hoose waxaa laga yaabaa inaan laga la tashan darajo ciidana la bixinayaa ama xil baa dad loo magacaabayaa aniga dadka aniga aan matalo tala kuma lihi yaa leeshaas waxa iska leh dadka magacaabaya ama ee samaynayo waxa ayaga og yuu matala xildhibaanka haddaanan reerkii asaga matala lagala tashanaynin deegaankii asaga ka soo tirsana aan lagala tashanaynin xuquuqdii ayaga ay lahaayeen
hadduu ka hadlo aan la dhegaysanaynin dadna ayagoo tubay iska haysto oo wax yaro oo ayaga ay ka maqan yihiin oo aanan soo qaadis lahayn ayay la taagan yihiin mikrofoonada dadna waxaadba moodaa in la iska ilaaway aan liiskaba ku jirin oo ayaga weli ku samrayo dawladnimo un hadiiba la heli karo oo sabirkaana loo qaato inay nacsan yihiin xildhibaan dhowr jeer arrintan ka dhawaajisay waxaa jirta arrin kale oo dadku ay ku wareersan yihiin waxaa soo baxda sheeko la leeyahay xildhibaanada dawladda ku dhow ciidamada lagama qaado xildhibaanada mucaaradka ahna ciidamadii ay wateen talisada ciidanka ayaa kala wareegay adiga ciidankaaga ma laga qaaday waa laga qaaday mucaaradna ma ihi qofna ma artay aniga ma taageero shakhsina ma taageero dawladda aan ka tirsanahay wixii aniga iyada aan ku dhaliilayana waa sheegay oo waxaan iri in layska wato ciidamadu ayagoo aanan loo samaynin wixii iyaga laga qaadi lahaa booskooda kuwa kale oo ayaga ee ammaankooda ee ayaga suga waa arrin khalad kamana qarsoonin intaan baxay taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan tagay ma gartay taliyahooda xoogga jeneraal Odawa ayaan arkay waxaan arkay wasiirka gaashaandhigga waxa la garowsaday wixii aniga aan watay anigoonan caaytamin anigoo aan meelaha wax kale aanan sheegin laakiin waxa waaye xildhibaanada qaarkood baba u baahnaba oo ciidan oo dawladeed ayagaaba waxa waaye in ciidan loo doonto ay ku fiican yihiin ma artay oo anaga dadkeenu aanan ma artay badanaaba aanan heli karin awooddaasi inaan la saaxiibo shanto ciidan iyo amaah ila nin maanta hub aruuriyay oo wadanka waana la ogyahay sida la kala yahay iyo awoodaha ciidan marka la yiraahdo sidii loo kala xoog badan yahay dad xataa aanan u baahnayn baa jirta ma artay hadii la siiyo technical markii ciidanka militariga laga qaaday oo taliska xoogga ciidanka ay ka qaadeen halkee ciirsatay ilaahi xildhibaanada qaar waxay leeyihiin markii taliska ciidanka booliiska aan ka doonanay ciidan oo militariga nagala qaaday taliyihii aflagaado iyo dhibaato ay baarlamaanka xildhibaanadu geysanayaan arrintaasi bal ka waran ani ma maqal ugu dambeyntii xildhibaan baarlamaankani waa baarlamaankii tobnaad baarlamaano badan ayaa ku jirtay aqaladiisa kan iyo kuwii hore markaas bardhigto ma kuu muuqataa baarlamaankani inuu yahay mid qaybsan oo aan aragtidii qurxinta baarlamaanka ku qaybsanayn labadii awoodood ee ka jirtay ee sharci dejintii iyo xukuumadda inay la kala safan yihiin horta xukuumad dad si kale ee ayaga u caashaqsan waa jirtaa dad si kale u necebna iyagana way jiraan labadaba xikmad kuma salaysna xukuumadda wax way qabatay in la inkira ma aha shaqaale baarlamaan xildhibaanada iyaga ay ka mid yihiin shaqaalaha dawladda mushaar oo bil ay u xaadiraan oo joogta ay u helaan tana ugu horeysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna sidoo kale 7 bilood baan sugi jirnay marmarka qaarna waxa way waaba yaani marna waxa way iyada meel ay ka baxday aan la garan jirin maanta waxa way tira ciidan oo inta cayiman oo biometric inta la tira koobay oo la leeyahay ciidankii saxda intaas waay tana ugu horeyso waxa la heli jiray nin marna booliis ah marna nabad sugid ah marna asluubta ah saddex meelood shaqo ka qaadanay xataa qaar la yiri xataa maartay shaqada iyo shaqaalaha markii ay arin baaritaan la sameeyay xataa haddana xataa oo laga helay hay'adaha oo shaqada caadiga oo civilka dad asagoo mushaarka qaadanayo waxaa la sheegay 20 meeyo kuma ciidan kor u dhaafay oo aanan jirin mushaar la qaadan jiray oo duurkooda iskaga jiro qaarkooda maartay xoolahooda iyo beerahooda falanayo oo amraacanayo inay ayaga ay mushaarkooda iyo magacooda ayaga wax lagu qaadi jiray walow aan jeclaan lahayn in la cadeeyo oo si cad yaa ku dhaqmi jiray la yiraahdo markii maanta waxaad arkaysaa sarkaal loo haysto hal qof buu numberkii lahaa ayuu maartay khalday oo galshir ugu jiro 15,000 iyo 20,000 ana loo sheegay dadkii sheekadaasi sameyn jirayna magaalada weli ma arkin maalin lagu eedeynayo ama janan lagu eedeynayo ama sarkaal lagu eedeynayo oo waxaasi waxa lacagta lunsan jiray raga ma jirto waxa moodaa marmarka qaar nin xoog yaro maartay xaasna ku xiriiro ayaa xabad kabriida loo xiraa nina intuu xado xasaysaha wuxuu xaabsadana waa xalaaltii la sheegi jiray ne anki xataa waxa way dunuubta ayaa sambar waxay qabataa dadka itaalka daran cadaalad daradana ay ku dhacdaa dulmigana ay ku dhacaa cid ka hadlaysana ma jirto dad baa raali ka ah laakiin iyaga kaliya madaxtooyadaas iyo kursiga yaalo kaliya ay target garaysanayaan waxa kale ee dulmi la sameeynayo dhan aanan shaqo ku lahayn ugu dambeyn waxaan u soo booqatay xarunta telefishinka Soomaali Cable maxaad ku talinahay dardaarankaas ani waxaan ku talinayaa ana horta waxaan iguma cusba ee laga qaylinayo dawlad aanan la xamanin oo ayada dad gaar ah inay naas nuujiso
dadna inay ayada ee ay xaqa ay leeyihiin ee mas-uuliyadeed ama shacbiyeed sidii la rabay aysan iyada gacanta maartay oo cadaaladda looga baahayay inay usiisa aanan looga baran hadda ma soo bilaabanin xantaasi madaxweyne cali mahdi SNA iyo SSA baa wadanka loo qaybsanaa jabhadihii waqtigii waxaa la yidhi SSA baa soo dhisatay looma dhama waa la joojiyey madaxweyne cabdiqaasinaa ku xigay waxaa la yidhi al-islaax baa ay ahaayeen nimankaasi inta kale maartay ma aha dad ka qayb galay nimankii hogaamiye kooxeedyada wadanka joogay dhan xoogooda kama ay qayb galin waa la baniday dowladdii cabdillaahi yuusuf oo la iskugu tagay ayadana xoogeeda oo weliba ictiraaf heshay waxay noqotay la yidhi dowladdaasi SRRC kaliya waa laga yimid midii sheekh shariifa noo bedelay oo noo yimid madaxweynaha oo noo noqday asagana waxaa la yidhi ala shiikhu wataa qolo la yidhahdo ya madaxweyne xasan shiikha yimid aan ku bedelin waxaa la yidhi dam jadiidu wataa hadda maxaa diidaya in la yidhahdo farmaajo iyo maaragtay iyo khayran nabad iyo nolol ay wataan waxaan waa wax aan kusoo daalay oo aan soo baranay waay berina kuwo kale hadda yimaado waxaad maqraysaa bil iyo xidig kuwo la yidhahdo haddana yimid ma gartay